laakiin kulmiye baybay inuu dumay maanta dalka wad ku aragsaa meeyar ma haysto qolaba shirkadooda ma haysto. wasiir hore Cabdirasaaq Cali Ismaan oo maanta telefishanka caalamiga ah Home Cable TV wareysi gaar ah ku siiyay hoteelka Haldoor ee magaalada Boorama ayaa waxaan u su'aalnay sida uu arko doorashada shirkadoonka cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland dhawaanta soo ilaatay isagoona dhankiisa isul taagay guuldarrada xisbiga muxaafidka ee kulmiye ka soo gaadhay loonankii loogu jiray shirkadoonka cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland. sida la socoto Imraanow waxa ka dhacay dalka doorashadii si nadiif ah oo qurux badan bay loogu dhacday inkastoo anugu aan haray uga hadlay wixii ay ahaydna aan haro sheegay laakiin hadda shirkadoonkii baa naga dhamaaday shirkadoonka ragga galay ee halka ka soo baxay rii waxa dhacay isriix culus oo dalka khatar geliyay oo aad dagaal culus oo ah hadda xagga dawladda tahay maaradkuna ay adkaystirota ilaahay uu naga nabadgeliyay qoladii shirka qabatay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gudoomiyaha golaha gurtiga baan ugu hambalyeynaya xisbiga kaadiriintiisa waa qabaay xisbiga kulmiye black kaadir buu noqday kaadiriintii xisbigu dibadda ka joogaan waxyaabaha keenay naagta koobay ka tahay waxaad imika ka garanaysaa shirkadoonka saddexda inaan shirkadoonka Cabdirasaaq iyo Saciid iyo Cali kulmiye original baa ragii kulmiye hore guusha keenay baa iyo saddexduba ahayn haddaba kulmiye markaa waxaa ka baxay kaadiriintii yaanu islaahay ana wax kaadir xisbi lama joogin wasiirada ciidii madaxweynuhu u dirsadayna meesha way ka baxday waa la dhaceen kulmiye markaa ilaa iyo madaxweynuhu gaaro way isla wada dhaceen kulmiyana sida deema sidii saaxadii udubu muuqa bixi ama de madaxweyne Muuse isaga hagaajisan oo soo saaran laakiin kulmiye baybay inuu dumay maanta dalka wad ku aragsaa meeyar ma haysto qolaba shirkadooda ma haysto dhinac walba waxa uma hadlayso dhan kulmiye wada arkeen kulmiye ama sidii udubu muu bixi oo baybay ma odhanayna ama madaxweyne Muuse wax buu ka qaban kulmiyana wuxuu odhanaa madaxweyne Muuse oo saduu u feeriyo isaga garanaya halkay ka taxsantahay deegaaniintii xisbiga way ka maqanta iyo sidoo toosinay waayo dadka ka shaqeynayaan shirkadii jiray hore waxaan ku sheegay dadka ka shaqeynayay way bilaa yarag ahayn anu gobolka wada baan joogay bilaa yarag baan abeerata wax shaqo ka socotay ma jirto gobolada kale sabab u maleelaya dadku isbedelka doonayaan kulmiye markii garan waayeen isbedelka raaceen. dhanka kale wasiir hore Cabdirasaaq Cali Ismaan ayaa waxa uu fariin dardaaran u diray gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxaan kaloo leeyahay Cabdirasaaq gudoomiyaha golaha baarlamaanka oo soo wada shaqeynay golaha wasiirada wadahayn inaad u kartay badan waxaan hubaa inuu ka soo baxayo Cabdirasaaq mid uu kula dardaarmaya Cabdirasaaq oo gudoomiyaha noqotay gudoomiyaha qaranka ee golaha baarlamaanka noqotay sidaas ku wadaysan sidaas adigu ma u ballan qaaday soo ballan qaado isku wad qaranka isku duubiyay ku wad waan ku ogahay Allahna ku garab galo shirkadoonka Saciid Cali laba nin oo kala dhigay weeyaan laba nin oo firfircoon wada haysta oo odayantan Saciid ku fiican yahay taana waxaan u leeyahay Cabdirasaaq rafiican badaysta hawsha sida qaranka kulliba iyo odaynimadaadii aad ku wadaya وعمران حسين آدن ورركة تلفزيون كعالمي Home Cable TV Boorama.